ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay Allah leedahay maanta madaxweynahan ya maanta midowga Afrika maanta muxuu ka sheegay maanta war Abdullah sida ma ahayna dhageyso maanta aw Muuse bixi maanta muxuu ka doonay meesha war xoogaga wadaniyiinta heesooda inta dib noogu dhigtaan madaxweyne Farmaajo shirkii midowga Afrika khudbad buu ka jeediyay khudbadan qoranaaytay wuxuuna ka codsaday madaxda Afrika una qabataynta hubka Soomaaliya in laga qaado si ay dawladda Soomaaliya shabaab uga adkaato dalkana waxa xasiliso war ciidamadan gada loo qaaday kaliya shabaabka adag labadii nolol diyaar uma aha inay shabaab la dagaalamaan war shabaab akayaale wataane hubka loo raadinay waa maxay akayaalka waaweyn ee hawdi qarxi soobamiyad ilawdeen ay han kordhiyo ilaanki leewa yaab leh war anaga difaacidin la galayna hadan Soomaaliland nahay اعتراف نصية ورنما يهود دولة الصومالية معارض كدليل يا شباب معارض كهودرن ودولة الصومالية عندي هنا نوتشيدين هرمر باي سمايس عيدان كي عركي عيدان كبدا كلية إني سمايس تيربتا sababtoo ciidanka gada u duulay diyaarada lagu qaaday wabiyana waa laga tilaabi ex control ma dhaafi karaan Soomaan wararka dawladda eedeed aan dadaali laakiin ciidankii ala garoob hoosi dadku ka jira biilahay wali ma soo bina afkooya ma gaarin afkiisa xunday waryaa xamar weynay joogan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya war waxaan idin leeyahay markii gobol loo kala qoqobay wada qabyaalaysan qarannimadii Soomaaliya ay qiire galiyeen qurba joogtan taladii qabtana waan qawadayay waxba inaanay noo qabanahayn wax ku qoonsada warlaanka adiga bilaabay yaad ku eedeynaysaa war damban moodaha wareerin aryaadaha Soomaali madax iyo majaba waxa heesta waa socaweyne aan orodno war an la yaabtay Abdullah uu dhow may baan haysadee islaanti gornyo saartay gaadu waaytay tan gornyo kala ka daratay war ma haysiine taliyaha sheegin maanta waa sheegay wuxuu hal qariyo dhihi jira ma qarso waayo horta ma cadeeyay war feera laguma hayo miyad maqal war marka hadda ma taliye sheega loo bixinaya war shar iyo غير muxuu sheegay taliyu war idinka iga dhaxgalay waxa uu sheegay aan idin sheego ma barakacayaashan beesasiyaha uu yiri taliyaha booliska wuxuu yiri dalka waa lagu soo duulay amnigiina faraha ka baxay oo uu sheegay asaga amniga u xil saarnaaye ya taliyuhu amniga u xil saaray hadoo faraha ka baxay muga ma shacabka fara ku hayo u soo dacwooha waraana elooshin wali jabo may qudbay jiraan shacabka hanala shaqeeyo si aan amniga u sugno war taliyaha boolisku inuu yira amniga faraha ka baxay iyada amni daraa warnimada waan idin dhameystay taliyaha wuxuu kale u yiri kaamirooyinkii aan ugu talagalnay in amniga lagu sugo waa la qarxiyay wadadii afgooyi xamar u dhaxaysayna waa la dhisi laayahay hadda cirkii dhulka meel ay tahayba dadkan waa la soo weeraray amnigiina meel xun u maraya ayuu yiri waxaan la yaabanahay boqol meeyda meelay taalo kuwa kiidhay ayaa la sheegine kaamira la jajabshay iyo amniga faraha ka baxay mayow keenay war madaxweyne Farmaajo hadda goor wuxuu yiri hadii amniga aan wax ka qaban weeyo gawaarida waaweyn aan gadaalka gala aryaadaha ho taliyaha arliga amnigiisiya eberamow adeegsaha arliga amnigiisiya eberamow adeegsaha war adeer Jamhuuriyadda Soomaaliland amnigeedu waa sugan yahay ciidan nabadda suga ma idin soo dirnaa war ciidan meeshii la rabo loo qaadi karo waan haysanaaye arrinka naga xune yaa lagu keenay joog aryaadaha war ma haysiin bariga madaxweyne waara gareen Kalamaan oo ku soo biira waara gareen soodo anna ma ka jir reer gareen ma hay in dhooyaw ma isha soo casiliyay aryaadaha warka iga dhaxgalina madaxweyne waara waxa uu magacaaba bariga agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha Hirshabeelle kaaga darana waxaas loo magacaabayo iyaku maba heestaan war madaxweyne waare waa niyad wanaagsan yahay inta uu sheegay mustaqbalka la sameey rabaa war maamulaan warbaahin lahayn ma socdo in leene mar horeba inuu sameeyaabay ahayd
may badheega jiray oo waanaysan ari jirtaan gubidkan gubi doono goryada daaqi doonto ee aan dili doono subageeda markaad shiilasto ayaad mataana dhali doontaa warwar ma haysaan wasiirka warfaafinta Puntland wuxuu yiri madaxweyne Deni warbaahinta wax dulqaad ah uma hayo dhinaca warbaahintana maba laga marabo cidii wax ka sheegtana adduunka inay sii joogto ma ogolo wuxuu kale intaas raaci Puntland warbaahinteeda waa la soo dhaxgalay marka dulqaad uma hayno warwar ma haysida wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ina kaahinba wuxuu sheegay in 30 wariyo nabad iyo nolol mushaarka ka qaadata Hargeysa joogan war adeer jeelka madheera maxaa linta lagu cabsiin waayay aryaadaha nimanka caasha Ilyas kufsaday ee haddana dilay lama kamida beriga xabada ka dhex qoydayaa la yiri midna 10 beriya dib loo dhigayaa la yiri war midka dib loo dhigay qisaastiis malaha waa laandheer isagu war cadaaladda Puntland maanta laandheer qofna kuma cafin gabadha dhimatay aabaheed Ilyasna waa hadlay wuxuu yiri qasqaasta annaga fushanay midkan dib loo dhigana annaga iyo ehelkiisa iska waraysanay in 10 beri dib loo dhigo oo la xaqiijiyo arintiisa kaama adeer buu ahaa aryaadaha caasha Ilyas tarxumadeeri ninkii ku jiray inuu dadkiisa ka hera ma ahayn war caasha Ilyas aabaheed wuxuu yiri nimanka markii la toogtay qoortaan ka taabtay in naftu ku jirto inay ka baxday oday Ilyas wuxuu kaloo yiri caasha Ilyas ragii kufsaday derisaan ahayn waana isna qiinay habar ambaroy ayaanta waa isu badneede beriga wixii ka bilowda maxaa doontaad mari kartaa xor ninkii dumar faraxumeeye waa la tooganaa miyaad ka wadaa halla toogto maahine tiirkana halla geeyo tiir ha ku boode warwar ma haysiine wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija Maxamed Diiri libax lama maaha may tiri Abdulla olkaas mar hore jabay shibnoo dheedin doorasho qof iyo cod macquul ma inay dhacdo miyay tiri war madaxweyne miyay isu soo sharaxday xulka kubadda cagta Soomaaliyeed mar dambe Jabuuti ku ciyaari maayo may tiri warwarka naga dhaxgelinine wasiirka oo maanta tagtay isbartiibo waxay tiri ma aqbalayno guryaha laga dhistay dhulkii garoonka waana wixii jabadii 30 sano jira xataa ka xishoodeen maanta in la sameeyo ciidan ka aqbalayna ma jirto yaa garoonkiyaaba la dayac tiraya kuwa haddaan guryo ka dhex dhisaya ma maran yihiin war adeer ceebtiina ma aha ee waa caadadiin waxay dadweynuhu noqdeen dibigii dooloode dantii guud kuwii loo diraa loogu dawgalay runtoo loo bandhiga iyo xaqoo meel barxada yaala bayaankii runtiya daacadaba waa ka baqayaaye boobkiiyo qasku doonayaa weligii beenlow emadleerow barhadaad muhaadaradaas uga badaasanta ka taalla yaa hal qofoo runta sheega haddaan reer ku lahayn ma rajaad ka qabtaa war reerkii degan hunguuro aan dambe leeri war Cabdullaahi Dalab wuxuu yiri rabbiyow run baa tahay run sheegay baa tahay aniguna runtaadii nin rumaystay baana ilaahay waa xaq wuxuu sheegayna waa xaq miyuu yiri war tababari xulka qaranka Soomaaliya xilkii waa iska xasilow yiri ma wasiir Khadiija ka qaaday war gaargacan qaaday ma uun gado galay war gaarigacanka gaano kuwada warkiiga dhageyso wuxuu yiri Soomaaliya amnigeedan ka baqay marka awlba gaaneesaan ahay gaanadeedan iska jooga gaanadiisa ha joogo gooskiis ha fadhiina mugga hore xaan noo keena war waa beentis waa la ciiriyay ninka ismacsilin war ma yaqaan daraaskiisa dhamaaday waxaan la yiri gaajay ku dilin aryaadaha ninkaas waa arki jire ma gaaneeso ahay horta bas gooyoobow la dhashay isu ekaayeena war safiirka Shiinaha wuxuu yiri Soomaalida joogta dalka Shiinaha waa caafimaad qabaan laba laga shakiyana waa baarnayo waa ka weyna cudurkii coronavirus war adeer fidmeerta cunina ku dhahay war dooligii dhajigi ishimbiro ma ameen Soomaalida aryaadaha war ma haysiina guddiga doorashooyinka madaxa bannaan guriyay dhisahayaana la yiriyo madaxtooye waa ka guurayaan war ma haysiine xalay xaflad weyn oo weyn ayaa magaalada Istanbul lagu qabtay maqaayad la yiraahdo Mandaq restaurant cashadeedu xalay free ayay ahayd alla meeshaan jiray dheereeda xalay warwariyaal badan ka qayb galeen oo ay kamid yihiin Salmaan Jamaali Xasan Baafo war gudoomiyihii doorashooyinka jahliyada waa yimid isugu war xafladan waxa loogu dabaaldegayay sanad guuradii 9aad ee raadiyo kulmiye waxaana ka horeysay mid kale oo aan ka dhacday yaahu yaa kulmiye lama bariya feestadiisa ka soo wareegtay warkan hanagu daalina naga dhameeyo ciyaaw war maxaa adigu ku haysataa kulmiye hadii xafladiisa u dhiganayo war cali muumina oo live ka soo galay Ankara ma qaraxa ka dhacay war waa marantaay xafladu live ka soo galay war yaala meeshaan uu kala wada soo taliyo madina amaankii gacantu ka bax war yada sheegina la diiriye ha sheegina tawfiiqda Allah idin waafajiye